السلام عليكم صاحب عيال وصاحب كنتا أمريكا فيلمكو وحكو بلامة حرتها وبرع عدمة بدأ مريكا 7 أكتوبر 2007 أفر معلومات كتب حكا تمثال لو ديري دونا أفغانستان isagoo ka baqaya inuu soo noqon waayo wuxuu qorayaa warqad maca salaamo oo murugo leh oo loo gudbin doono xaaskiisa haddii uu dhinto warqadda ayuu siiyaa taliyaha isagoo rajaynaya inaan la dirin warqadda intaas kadib Sam wuxuu gurigiisa ugu soo laabtaa fasax gaaban Sam waa nin qoyskiisa jecel xaaskiisa Grace iyo labadiisa gabdhood ee Maggie iyo Isabella dhanka kale walaalkiis ka yaree Tommy oo hadda xabsiga laga sii daayay ayaa muddo u xidhnaa dhac banki waa ka soo horjeedka walaalkii dhanka dabeecadda oo nin dhaqan xun ayaa lagu eedeeyaa Sam iyo Tommy waxay isku raacaan magaalada guriga waa la buuxaa halka Grace ay diyaarinaysaa casho lagu dabaaldegayo soo bixitaanka Tommy marka uu Tommy soo gaadho guriga Isabella ayaa albaabka ka furtaa waxaanay hooyadeed u sheegtay inaanay ninkan jeclayn ugu dambeyntii qoyska ayaa miiska soo fadhiista mid baa jeelka ka soo baxay oo soo noqday imika halka mid kalena loo ducaynayo maadaama uu safar Afghanistan gelayo aabahood Hank ayaa canaantay Tommy isagoo ula barbardhigaya Sam wuxuuna leeyahay walaalka dalkiisa ayuu adeega adiguna sharciga jabisa walaalka waa geesi muran ayuu kiciyaa ugu dambeyntiina Hank uu ka baxaa guriga markay dhamaato cashadu Tommy wuxuu Sam ku leeyahay fadlan naftaada ilaali walaal habeenkaas Sam wuxuu iska siibay faraantigiisa guurka Grace waxay silsiladu xitaa Sam waxayna ku leedahay waan ku jeclahay waxaan ku rajaynayaa safar wanaagsan 5 maalmood kadib Sam iyo ciidankiisu waxay gaadhiga ku dhex marayaan lama deegaanka Afghanistan wuxuu moobilkiisa ku duubayaa goob dagaal ka dhacay in yar kadib helikabtarka ay kasoo deganayaan la soo ridaa waxaana ay ku burburtaa dhulka Grace qubays ayay ku jirtay markii albaabka lasoo garaacay Maggie ayaa furaysa waxaana ay aragtaa 2 askari oo ka warramaya geerida ninkeeda Grace aad ayay uga naxdaa warkan oo waa ay shoogtaa waxaana ay tusayaa mar kale iyadoo daawanaysa fiidiyodii ay xasuusaan u haysteen Sam telefoonkiisa marar badan ayay garaacdaa laakiin waa lama heli karo halkaa markay marayso waxaan idinka codsanayaa saaxiib inaad fiidiyoga like saartaan habeenada ka mid ah Tommy oo cabsanaya imanaya guriga wuxuu arkay Grace oo murugo weyn ka muuqato markuu wax ka weydiiyay murugadeedana Grace iyadoo ay u sheegtay in Sam uu dhintay Tommy wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee warkan maqla maadaama aan la heli karin maalintii oo dhan Tommy wuu qayliyaa isagoo leh Sam marnaba maan ogolaadin inuu halkaa tago Tommy wuxuu ku laabtaa guriga waalidkii albaabka ayuu fadhiistaa isagoo diiday inuu gudaha u galo Grace waxay gabdhaha u diyaarinaysaa aaska Sam aaska kadib Grace waxaa loo dhiibaa warqadii maca salaamada ahayd ee uu soo qoray Sam welina ma furto Hank oo cabsanaya rabo inuu gaadhiga wado balse Tommy ayaa furayaasha ka qaadaya una sheegay inuusan qof cabsan gaadhi wadi karin dhanka kale Hank mar kale ayuu Tommy canaantaa Tommy waxa uu sheegay aabihii inuusan weligii aabo wanaagsan noqon oo inamadiisa jecel Samna uu ku barbaashay sheeko ciidan jacayl oo kaliya taasina ay sababtay inuu maanta ku dhinto dagaal Grace way ka cabsanaysaa warqadda waxayna dib ugu celisaa khaanada dhanka kale ciidamada Taliban ee Afghanistan waxay wataan 2 askari waana Sam oo nool iyo askari kale oo Joe la yiraahdo oo dhaawac fudud ka badbaaday waxaa lagu ridayaa xabsi dhulka hoostiisa Sam wuxuu Joe kula dardaarmayaa inuusan sheegin wax ku saabsan siraha ciidanka taas bedelkeeda uu aamuso dhinaca guriga Tommy oo cabsanaya Grace ka dalbanaya inay soo tamiinato kadib markii uu jabiyay xeerka uu xabsiga ka soo baxay Grace waxay habeenkii u baxdaa si ay u soo tamiinato Tommy subaxii gabdhuhu waxay isku dayayaan inay quraac sameeyaan si ay hooyadoodu farxad geliyaan Tommy oo jiifa ayaa ku qaylinaya inay joojiyaan shanqadha dhanka kale Hank ayaa soo galaya uuna ka xumaadaa in ereyo xun uu ku yidhi Tommy shalay wuxuu ka raali geliyaa sidii uu canaantay halka Tommy uu ku yidhaahdo Sam mar walba uu iga caqli badnaa balse Hank wuxuu ku jawaabayaa adiga ayaa hawsha ka hadhi jiray ee Sam waa uu dhammaystiri jiray ma ahan inuu ka caqli badan yahay kaliya Sam oo godka ku xidhan wuxuu arkaa helikabtar dul hayaabisa xerada Talibanka wuxuu bilaabaa inuu alwaaxyadii garaaco si uu gargaar weydiisto hase yeeshee askari ayaa qori ku qabta kuna hanjabay inuu joojiyo dhaqdhaqaaqa iyadoo dhagax weyn kor laga saarayo Tommy wuxuu xasuustaa hadalkii aabihii ee ahaa jikada Grace waa foolxumo markaas ayuu isaga iyo saaxiibadii dib u dhisaan jikada si ay qoyska ugu farxiyaan 2 bilood oo maxbuusnimo ah Joe qalbiga ayuu ka jabay wuxuu Sam ku yidhaahdaa adiga ayaa i badbaadiyey maxaad ii badbaadisay hadda annaga waxaan haysta dad manaxyaal ah dhimashadu way ii roonayd Sam wuxuu u sheegay inuusan quusan kuna adkaystaa inuu qofna u sheegin darajadiisa dhanka kale Talibanku waxay yidhaahdaan wax macluumaad ah ma bixinayaan raggani way soo saaraan halka nin Afghanistan oo satellite phone adeegsanayo si uu xaaskiisa uu kala u waco waxaana la ogaanayaa halka ay ku sugan yihiin hogaamiyuhu wuxuu ku yidhaahdaa Sam kan waa dalkayga idukuna shaqo kuma lihidin fariintan u gudbi dalkaaga hadii kale oo ku dilaya Grace waxay ku mashquulsantay dhismaha jikada cusub saaxiibada Tommy xataa gabdhaha ayay ogolaadeen inay rinjiga ku caawiyaan Maggie ayaa si shil ah rinji ugu shubaysa mid kamid ah saaxiibada Tommy Grace markaas ayay siinaysaa mid kamid ah dharka Sam si uu iskaga bedelo dharka rinjiga leh Sam biyo ayaa lagu shubaa isagoo tiirka banaankiisa ku xidhan Joe hortiisa ayaa lagu gugubayaa isagoo ooyeen wuxuu kaamira ku leeyahay Mareykanku ma laha shaqo halkan ayaa ka fiican isagoo sii raacinaya in xaaskiisa iyo ilmihiisa uu jecel yahay wuxuu kaloo fishilayaa in Sam uu haysto 2 gabdhood sidoo kale uu yahay taliye ciidan oo bilada leh jikada cusub ee qoyska ayaa dhamaatay waqtigaasna waa maalinta dhalashada Grace laakiin qofkii ugu muhiimsanaa ayaa maqan waana
Sam oon weli soo noqon. Xilliga jiilaalka Tommy wuxuu Isabella uga sheekeeyaa sida Sam uu mar u badbaadiyey markii uu webiga ku dhiman rabay. Waxay u safraan barafka loo dalxiis tago. Grace-na waxay ka naxdaa sida Tommy carruurtiisa ula dhaqmayaan maadaama ay necab yihiin ay u haystaan qof xun. Maalin kale Tommy wuxuu booqdaa haweenaydii bankiga haysatay taasoo hore u hanjabay uu ka raaligeliyaa iyadu waxa uu sheegtaa inay 3 sano aysan si fiican u seexan cabsi darteed. Habeenkii dambe Tommy iyo Grace way wada joogaan iyagoo xasuusanaya sanadii hore dugsiga. Grace waxa uu sheegtaa inay markaas necbay Tommy sababtoo ah mar walba waxa u dhexeeyay dagaal iyo khamri. Way is eegayaan waxayna Sam ku qiyaantaa walaalkii Tommy. Warqadii Sam ee loo keenay weli may furin. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa la siinayaa Sam bil waxaana lagu amrayaa inuu saaxiibkii Joe dilo. Waxaana la leeyahay ama adiga ayaa noolaanaya ama isaga ayaa noolaanaya iyagoo carruurtiisa ku hanjabayay inay dilayaan. Samna ugu dambeyn uu garaacayaa Joe ilaa uu ka dhinto. wax walbana waa laga duubayaa. Tommy mar kale wuxuu yimaadaa guriga Grace isagoo marmarsiyo kala samaysanaya. Wuxuuna leeyahay albaabka ayaan qurxinaya. dhanka kale xerada Taalibaanka waxaa weeraraya ciidamada Mareykanka. ninka hogaamiye ah ayaa isku dayay inuu Sam dilo laakiin isaga ayaa la toogtaa. kaamiradiina dabka ayay ku gubanaysaa. Samna waa la badbaadiyey. dhanka kale Tommy carruurta wuxuu kula ciyaarayaa bannaanka kadib markii telefoonku uu soo dhacay. Grace waxaa loo sheegayaa in ninkeedii uu nool yahay. way argagaxaysaa wayna yaabaysaa. qoyska oo dhan waxay kusoo dhaweynayaan garoonka diyaaradaha. Tommy farxad iyo murugo isugu jirta ayuu dareemayaa. gabdhuhu waxay isla markiiba ku faanaan jikada cusub. Tommy iyo asxaabtiisa ayaana dhisay ayay leeyihiin. Sam wuxuu seexdaa sariirta. wuxuu si adag ula hadlaa xaaskiisii gabdhihiisa. Grace waxay u dhawaataa nabaradiisa wayna dhukataa laakiin Sam iga bax buu dhahaa. waxaynu aragnaa in isbedel cad ka muuqda Sam. Tommy wuxuu arkaa wargeysi sheegaya in Joe uu ku dhintay gacanta Sam. warkaasina uu sir yahay. Hank wuxuu arkaa habdhaqanka Sam kaasoo u eg mid dagaalku uu soo saameeyey. wuxuuna arkayaa sida uu isaga iyo carruurtiisa u kala fogaanayaan iyadoo barafka lagu ciyaarayo. Sam wuxuu arkaa sida Grace iyo carruurtu ula faraxsan yihiin Tommy. Sam wuu ka masayraa wuxuuna Tommy uga mahad celiyaa inuu qoyskiisa si wanaagsan u ilaaliyey. markaasuu si lama filaan u weydiiyaa ma wada seexateen adiga iyo xaaskayga Grace isagoo qaba inay dhacday maadaama la moodayay inuu dhintay. Tommy wuu ka meeraysanayaa arrintaas balse Sam wuu ku adkaystaa wuxuuna hubaa inay wada seexdeen. dhanka kale qoyskii askarigu ka dhintay ee Joe ayaa soo booqanaya Sam. wiilkii yaraa ee saaxiibkii dhalay ayuu arkaa halka xaaska Joe ay weydiinayso sida uu dhintay ninkeedii laakiin Sam ayaa been u sheegaya isagoo ku leh ma arkin sida loo dilay. habeenka dambe Sam wuxuu koobo kala soo baxaa weelka. wuxuu bilaabaa inuu dhigdhigo isagoo muuqda inuu xoogaa soo yar waalanayo sababo la xidhiidha jirdilkii loo geysan jiray xilligii uu xidhnaa. maalinta xigta wuxuu u tagaa taliska booliska militariga isagoo ku leh waxaan rabaa inaan dib ugu laabto ciidanka. wuxuuna leeyahay cidi fahmaysaa ma jirto mana rabo inaan joogo gurigayga maadaama inay qoyskaygu fahmayn. marka uu soo noqdo iyagoo wada cashaynaya gabdhaha yaryar ayaa qosol iyo kaftan samaynaya halka Sam uu xanaaqayo. wuxuuna ku leeyahay kaftankiinu ma qosol badna waxaad ku faraxsantihiin mad naga aamustaan. kadib miiska ayuu ka kacaa halka Isabella ay leedahay goorma ayuu adeera Tommy soo noqonaya. waxaynu fahmaynaa inay aabahood ka soo horjeedaan oo ay naceen intii uu dagaalka ku maqnaa. Grace waxay rabtaa in Sam uga sheekeeyo wixii Afghanistan ka dhacay balse Sam wuxuu rabaa waxa Grace iyo Tommy dhex maray inuu uga sheekayso. waxbana ma dhex marin markay tidhaahdana Sam weli wuxuu aaminsan yahay inay dhex mareen. wax habeenkii wuxuu booqdaa qabrigii saaxiibkii Joe ee uu dilay. subaxnimadii guriga ayuu kusoo noqdaa halka gabdhaha bannaanka ay ku ciyaarayeen. Isabella waxay ka baqdaa aabaheed oo dib bay u baxsataa laakiin Sam ayaa hab siinaya wuxuuna ku leeyahay wax walba way hagaagayaan inagoo ogaanina in maskaxdiisa xoogaa marba ay maqnaanayso. dhanka kale maalinta dhalashada Maggie guriga Hank ayaa la isugu wada imaanayaa. Tommy wuu imaanayaa isaguna laakiin waxaa la socda gabadhu saacad ka hor la kulmay oo la yidhaahdo Tina si uusan uga shakin Sam. Tina waxay isku dayaysaa inay la kaftanto Sam laakiin lama hadlo halka Tommy uu aamusiinayo. gabdhaha yar ruuxay noqdaan qaar qaylo badan. Isabella waxay u sheegtaa in qof walba uu jecel yahay Maggie oo wax walba la siiyo iyadana aan la jeclayn iyadoo sidoo kale boombalaha si ula kaca u xoqaysa si ay dadka ugu soo jeedsadaan. Sam wuxuu u sheegay inay deyso shanqadhaas boombalaha laakiin ma maqlayso halka Sam uu cadho darteed uu ku qarxinaya boombalaha isagoo wejigiisa xanaaq ka muuqdo. Isabella way oydaa waxayna ku qaylisaa waxaad u dhiman weyday ma waxaad u cadhaysan tahay hooyo waxay rabtaa inay Tommy la seexato laakiin adiga kuma rabto sidaa darteed ayaad u xanaaqsan tahay. iyagu had iyo jeer way isjecel yihiin laakiin adiga ayaa qasaya. markay soo dhammaato xafladu intii ay guriga usoo socdeen waxay guriga ugu noqdaan si aamusnaan leh. fiidkii Isabella waxay raaligelisaa hooyadeed iyadoo aynu ogaanayno inaysan waxba ka jirin waxa ay sheegaysay ee ay aabaheed uka xanaajinaysay. waxayna raacinaysaa inay aabaheed necab tahay. habeennimadkii Sam bir ayuu soo qaataa wuxuuna jajabiyaa jikadii cusbay ee uu Tommy dhisay isagoo ku qaylinaya qoyskan daraadood ayaan u badbaaday idinkuse waad i khiyaantay. wuxuu la yaaban yahay sida uu walaalkii ula seexan kara xaaskiisa. wuxuu ku qayliyaa Grace isagoo xasuusanaya waxa uu sameeyey jacaylkiisa darteed. wuxuu xasuustaa waxa uu galciisa ku sameeyey si uu gurigiisa ugu soo laabto markuu dilayay saaxiibkii. wuxuu madaxiisa ku dhuftaa birta burburintii waa sii socotaa kadib Tommy ayaa soo
soo gala wuxuu isku dayaa inuu walaalkii dejiyo isagoo habsiinaya, laakiin Sam bastoolad la soo baxaa madaxiisa ayuu ku qabtaa. booliska ayaa yimaada. Sam wuxuu banaanka ula baxaa bastoolada. booliska ayaa ku qaylinaya qoriga dhig halka Sam uu ku dhawaaqaya erayadan: maxaad halkan u joogtaan? geesi nuucee ayaan ahay, qofna ma yaqaano wixii aan sameeyey. inagoo aynu arkayno inuu isku dhaafay dilkii uu saaxiibkii u geystay. qof walbana wuu ku xanaaqayo. wuxuu qoriga saaraa madaxiisa. Tommy iyo Grace way ku qayliyaan, waxayna ku leeyihiin jooji. Sam wuxuu leeyahay waan quustay, laakiin Tommy ayaa dejinaya. markaas ayuu qoriga tuuraya. booliskuna way xidhayaan. Grace waxay la seexataa gabdhaha si ay u dareemaan ammaan. ugu dambeyn waxay furtaa warqadii Sam soo qoray, waxaana ku qornaa sidan: haddii aad akhrinayso warqadan waxay la macno tahay inaanan kasoo noqon dagaalka. waxaan si aan la koobi karin u jeclahay adigiyo gabdhaheena. Grace way oydaa, waxayna dareentaa ilaa xadka uu jecel yahay ninkeeda Sam. wuxuu isbitaalka dhimarka ka wacaa Tommy si uu u raaligeliyo. subaxnimadii Tommy guriga ayuu la jooga gabdhaha. Gracena waxay booqataa Sam, waxay ku leedahay waan ku jeclahay tan iyo ilaa berigii aan dugsiga dhigan jirnay. haddii aadan ii sheegin wixii kugu dhacay mar dambe kuma imaanayo. Sam wuxuu go'aansanaya inuu sheego wixii ku dhacay markii uu xidhnaa. wuxuu uga sheekeeyaa wixii ku dhacay markii uu xidhnaa, silicii iyo dhibtii uu soo maray. ilma ayay indhaheeda soo istaaga, wuxuuna ku yidhaahdaa saaxiibka ayaan gacanta ku dilay iyagoo i qasbaya. Gracena waxay ku tidhaahdaa iga raali noqo, waan ku fahmi waayey. Sam wuu iska cafiyaa. halkaas ayuu ku dhammaaday filimkeenu. haddii aad rabto inaad la socoto si maalinlaha filimaanta aanu halkan soo dhigno, fadlan subscribe saar, gambaleelkana furo. mahadsanid.